حتى واحد سواكم قدومي حسبكم عاد لبدي إمك سد حبيرود اللي هو مركي لبعض حسبكم معارضك مرنا قوان سد حفر بيتك كسو صار عيدك بوريس وكعيرين إمك رتو دبل بيت قدومي حسب كسو صار عيدك بوريس وكعيرين حتى واحد قدومي حسب هو واكم waxaan doonayaa bal maanta si naloo kala saaro oo booriskiisa la dhigo arrinta meesha taagan la ogaado inaan sharaxaad ka bixiyo horta xirsi dawladii tan horeysa kulmiyay hadii ugu baawar walaal ka wasiirka madaxtooyada hadii go'aamada ugu waaweyn gaari jiray anigu dawladda ku jiray doorashadii 2008 xubnihii komishinka ayuu madax xigeenka wuu iska casilisay doorashadaas ay khalkhal u gasho mar labaadkii isla tuutaysan arkii xirsi wuxuu abuuray jabhad waysa baabuur boqorya saaray ciidan buu la baxay dawladii daahiriyaal xilligaa jirtay koori wuxuu ciidanka boolisku soo qabtay isaga oo hawsha ku jira ayaa gacanta lagu soo dhigay oo la soo xiray markii saddexaad dawladii isla siiraayay xilliga ugu dambeysay markii darihiisa ay ka dhamaadeen wuxuu isku dayay inuu inqilaab ku sameeyo isagoo xubintii ugu xoog weynayna 12 xubnood baa iska casilay fikradda ugu weynaysan ah oo dawladdaas dilkii ku badbaaday xilliga waxaa jirtay xilligii maaragtay labadii bishii 2004 markii doorashooyinka wuxuu haragii ka soo horjeeday ee kordhinta doonayay kordhinta maanta uu ka soo horjeedo raggii u doonayay ee ay baarlamaanka isku qabsadeen ee xataa hal haysaha la baxay sankay caana ka keenaya waxa la mid ah heede isagoo le iyo macirka soo dhacaya iyo qiyaamaha la afuufaya hadii doorashadii cawada xilliga ragii hal haysta kula hadla markii doorashadii xaqsoon oo radii haray xilliga dhacay mudaharaad ragii ka soo horjeeday ee lahaa maanta dalkeenu fowda iyo mudaharaad ma baahna ee ku sheegaya wax argagixisa iyo ka sokaysa mudaharaadka ee ka soo horjeeday waxaan anigu abuuraya maaha youtube-yada ku jirtaa social media ku jirtaa waxaasoo dhan way ku jiraan xirsi wuxuu ahaa ninka qura ee gabadh reer Soomaaliland ninka qura madaxa ee maxkamad loo soo taagay way ahayd maxkamad ku geeyay ee maxkamad loo soo taagay ee ku dacweeyay isagoo baawarada ugu waaweyn haysta ayuu haddaba xirsigii shalay iyo xirsiga maanta waa